بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعنا وناكسن meel kasta oo naga daawanaysan daafaha dunyada wadanka gudihiisa. Waxaan doonaynaa maanta waxaan ku sugannahay barxad wanaagsan oo runtii bilicsan. Waxaanu doonaynaa inaan waraysi dhinacyo badan taabanayaan ka qaadno injineer Garaad Cabdinaasir oo kamid ah garaadada reer Soomaaliland. Marka hore waxaan doonayaa garaadku bal dad fara badan oo daafaha dunida ka daawanaya inuu isbaro garaadku halkuu ku dhashay, halkuu ku barbaaray, waxbarashadiisii, su'aalo kale oo runtii horumarka dalka ka hadlayna waanu ka wareysan doonaa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aad baad TV-ga qaranka u mahadsantihiin. Waqti dheer ba horta ku qaadanaysa haddii aan ka hadalno background-kayga, laakiin anu magaaladan aan ku dhashay. Dugsiyada badankooda magaaladan aan ka baxay. Intii dambe jaamacad haday tahay hadii dugsi sare ay tahayna waxaan ku dhameystay xamar madaxdii wasaaradii arrimaha dibadda ayaan ahaan jiray marka anigoo sida aan idin sheegay madaxdii wasaaradii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaan ka mid ahaa dawladdii waqtiga jirtay ee Maxamed Siyaad 4 sanadood iyo badh baan la soo shaqeeyay nin garaada oo Allahumma salli ala Muhammad siyaasadana kaba maqni waxa weeye qofku hadduu tacliin leeyahay geed hoostiida inuu iska fadhiisto maaha waa inuu waxaan doonayaa garaad tacliintaada iyo taariikhdaada inaad soo koobto kadibna garaadnimada siyaasadda inuu iman doono marka haddaan u soo noqdo wadanka iyo hadeer anigu hadeer waxaan u maleynayaa inaan 4 bilood iyo badh joogay anigu reer London baan ahay wanaag fara badanna meeshaasaanu ka wadnaa annagu had iyo jeer waxaanu ka shaqaynaa danta guud halkan waxaan ku yara arkay intaan joogay dadku dee hab hadday xisbi tahay iyo hab kaleba dadku iska hab ma garanaysaa weli aynan wax danta guud si khatar uga hadla ma arag xisbi hebel baan ka tirsanahay xisbi hebel baa lagu shidaya oo waliba xisbi hebelna waxa laga yaabaa inuunan mowqif cad meeshu taagan yahay iyo wuxuu wadanka ka damacsan yahay inaan laga bahayn marka haddaan taa kaga baxo waxaan leeyahay haddaan anigu waxaan u imid wadanka runtii ama aan ka adkaysan waayay anu ingiriiskan deganahay alxamdulillah rabbil caalamiin wax kasta waa ku haystaa garaad waxaan doonayaa garaad dad badan baa isweydiinaya inuu soo noqon doonaa sheekada garaadku halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray waxbarashadiisii aqoontiisii anigu Hargeysaan ku dhashay iskuulka labada iskuul ee hore halkan aan ka baxay secondarygaygii baan xamar ka bilaabay iyo wixii haday jaamacad ahayd iyo hadii ay shaqo dawlad ahaan lahayd dadkii wasaaradii arrimaha dibadda ee waqtiga u shaqayn jiray waan ahay noo bilow hadaba London iyo hawlaalkaad adigu de markaas sidii qurbahan aan ku imid hadii aan idinka sheekeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaan waxaan ka ahaa nin ka shaqeeya bedel baan waxaan ku imid safaaradii Soomaalida ee marka West Germany baa la oran jiray bariga ku taalay Bonn baa la oran jiray meeshaas 3 sano ayaa iigu dhamaaday iyadoo wadanku dawladdii taagan tahay baan anigu iskaga tagay markii ay nala soo gudboonaadeen ama dadkii marka safaaradda ka shaqeynayay u dhashay hadeer waa Soomaaliland marka waqooyi reer waqooyi baa la oran jiray dhibaatooyin nala soo gudboonaadeen ayaan marka anigu waxaan goostay inaan ka tago horta markaasaan anigu Yurubta galay markaasaan Yurubta kale nafteedii wax ka sii bartay caruur iyo xaas iyo reer ku yeeshay intii dambana London baan deganaa oo anigu dadka qadiyadaha badan ma yihi dadkuna midun bay ugu yaqaanaan taasun bay marka dambe iyagoo ordaya intii igu yimaadaan yiraahdaan waniyahow waqti horaad adigu dadka isha dheer ee wax hore arkaad anigu runtii ama reer waqooyi dadkana la isku yiraahdo ama Soomaaliland la isku yiraahdo ama magac kale hadii hadhow rabaan hala baxaan anu horta xaggaas uun baana waxyaabahan
iminka soo baxay 30 sano ee magacyada kala duwanna niyahow ka yar badowaan homaba aqaano anigu reer waqooyinimada iyo laankaas ay ugu dheer dadka sidii ay iskula wala jaan qaadi lahaayeen taasi waa mid kaliya mid u taala maahe waa mid dadka dhan u taala waxay u taalaa dawladda waxay u taalaa shicibka waxay u taalaa culimada taas uunbaa anigoo ka duulaya keentay arrimaha bari way iska yar cakiran yihiin meeshana haddii aan la abbaarin waxa dadku tabanayaan iyo meeshu waxay u baahan tahay iyo waxa siyaasiyiintu rabaan dee arrintu weligeed halkaas unbay ka taagnaanaysaa dadku markaa waxay rabaan horumar nabadgelyo in iyaga oo meeshooda jooga waxooda ka Hargeysa jooga uunan ku tagrifalin oo waxooda halkooda loogu geeyo dee markaa annagu taas un baan u nimid dawladduna waana og tahay inaanu joogno oo iminka 4 bilood iyo barkii tegey ragga dawladda ugu sarreeya ilaa heer madaxweyne cid aanan is arag ma jirto mid kastana waxaan uga warramay dadku waa ku weydiinayaan waxay ku oranayaan garaad waad soo noqotay maxaad waday dee anigu waxaan ugu jawaabaa anigu waxaan waday nabadgelyo iyo horumar iyo sidii dadku gacmaha isku wala qabsan lahaa taasunbaa anigu aan waday iyaguna si fiican bay runtii ii soo dhoweeyeen anigu reer Hargeysihii horaan ahay garaad waxaan doonayaa maadaama dhinacna aad qurba joog ka tahay arrimaha siyaasadda waynu u soo noqon doonaa inaad wax yar dul istaagto maalgashiga horumarka waddanka ka socda haddii ay tahay waxqabadka xukuumadda shacabka oo wadooyinka qayb muhiim ka ciyaara arrimahaasaan doonaa inaad qurba joogna fariin u dirto aad tiraahdo Soomaaliland waa la gaaray waqtigii la maalgashanayay yes bismillaahir rahmaanir rahiim xagga maalgashiga Soomaaliland waxaan u malaynayaa magaaladii ugu horeysay maalgashigu ku ama qurba joog maalgashada Hargeysa boorama ku xigtay berbera hadda xawaali waxay ku socotaa xawaara aad u dheereynaya burca ku xigta adigu de sida loo kala dambeeyay meelba meel ku sii xigta qurba joog aad u fara badan ayaa wadanka sanadkan yimid maalin dhaweyto ayaa tirakoobka la sheegayay 16 kun markaa waxay ku tusayaan waxa laga yaabaa xamar 16 kun inayna tegin ama dadkii koonfur dhashay waxa laga yaabaa wax 800 ilaa 900 hadday tagaanba marka numberka fara badan halkan imanaya wuxuu ku tusayaa kow nabadgelyo wuxuu ku tusayaa dhaqaalihii wuxuu ku tusayaa dadkii oo niyad sami ku yimaada niyad samina kaga taga marka taas horta dawladdu waa ku mahadsan tahay haddii ay tahay aeroboorto haddii ay tahay wadooyin iyo haddii ay tahay waxa dadka daruuriga u ah ee dadku ay telefishinada kala socdaan iyo horumarka marka waddanku horumar fiican ayuu ku talaabsaday waxaanse u malaynayaa dee horumarka gidi lama wala oran karo dawladdu qayb bay ku leedahay qaybta kale waxa kula qurba joog marka haddii qurba jooga iyo dawladdu iskaashadaan wasiirka arrimaha dibaddana dee khudbadiisii maalintii dhaweyto waa daawanayseen muxuu ahaa xafladii qurba jooga aad buu u soo dhoweeyey qurba jooguna dee wuxuu yidhi waa qayb weyn oo baaxad leh oo ka tirsan waddanka waana safiiro garaadeen sida aad la socoto buuhood la bariyeen waxba ka jiray baasha uu ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xaglata uu siiyay isaguna door muhiim ka qaatay niman badan oo reer Soomaaliland oo ka soo jeeda halka bal adigu aragtidaada buuhood la ka waran anigu caadi ahaan deegaankan ka imid waxa weeye waa deegaanka ama gobol ahaan la isku yiraahdo hadeerto loogu magac daray cayn magaalada ugu weyn waa buuhoodle magaalada ku xigtaa waa Woodwood magaalada ku xigtaa waa Saaxdheer iyo de magaalooyin kale oo aad u tiro fara badan sidaa darteed magaaladaasi de waxa weeye gobolada hawdka waa magaalada ugu weyn magaalada dad badan baa degan ama xagga Itoobiya ka soo yimaadaan ama dadkii deegaankaba ha noqdaan marka magaaladaas sidii gudoomiye baasha uu sheegay waa run
saddex maamul baa jooga oo saddexda maamulba ay rag madaxoo sare soo dirsadeen anigu markaa saddex maamul waxaan ka wadaa kuwa Puntland dad wasiiraa way soo diraan dee adigu waa yimaadaan waa noqdaan xaggan Muqdisho waxay soo diraan iyaguna waxaan doonayaa mowqifka Soomaaliland buu hoodlin inaad ku dulto koobnaato Soomaaliland dee mowqifkeedu waxa weeye Soomaaliland mar haddii ay tiraahdo ama tiri xadkayaga intii la isku oran jiray muxuu ahaa Soomaaliland ayaanu dee soo xidhaynaa ama aanu kasbanaynaa dee horta waxay u taallaa Soomaaliland iyo dawladda ka magaalo ahaan haddaan dib u soo noqdo magaaladu population aad fara badan baa degan siyaasadaha aan idiin sheegay ee group qoladan Puntland u ololeeyaa waa joogaan khaatumo waa joogtaa iyo cali khaliif groupkiisii Soomaaliland dee waa bad arkaysa xagla toosiye iyo wafdigii halka ka tegay marka wasiir xagla toosiye dee waa tii dawladdu dirtay dadaal badan buu sameeyey laakiin dee anigu haddii aan xagla toosiye ahaan lahaa waxaan samayn lahaa waxaan isku dayi lahaa sidii cali khaliif marka Puntland iyo laga yimaado dadkan kale sidii cali khaliif ee odayaasha meesha jooga ay bal noogu kala way magaalada ninba dhinac inuu ka degan yahay waan ognahay sidii uu u bilaabi lahaa isagu oo xagla toosiyey inuu cali khaliif hadal la bilaabo oo cali khaliif iyo isagu intay soo fariistaan uu yiraahdo war caliyow anigu waxaan ka imid xaggaas iyo hargeysaan ka imid anigu wanaag iyo sharaf baan rabaa meeshan dhibaato waa tii markii hore ka dhacday wadinkii ogaa dhibaato dambe ma rabno iyo isjiijiid kale iyo waddankani inuu horumar gaadho dhakhtaradiisa iyo hadday waddooyinkiisa arrimahaas iyo wixii ka sii halmaanaan rabnaa hadda waa xagla toosiye haddaan anigu ahaan lahaa cali khaliif anigu waanan ku celceliyey waa muwaadin horta nin Soomaaliland weligii intaan arkayay ceeb iyo de wax kale ku tuura ma aha laakiin qadiyadda Soomaaliland ka soo horjeeda adigu dee waa ka maqalnay tan uu leeyahay anigu Soomaali weyn ayaan aaminsanahay ta Soomaali weyn dee dadku qofba meel buu joogaa laba professor gareedeedii waxa tahay dadka siyaasadahan taageera cali khaliif kale anigu cali khaliif ka jifa ahaan haddaan ku taageerayo aniga waa in adeerkay ka jifa ahaan haddaan ku taageerayo anigu horta qabiilaysta meey aabbahay waa cali khaliif iyo aabbahay waa saaxiib waa raggii khaatumo sameeyey waxaan siyaasadda horta waxaan idiin sheegaya dadka dee ceebna ma aha qofku qadiyadiisa dee waxa weeye inuu qariyo ma aha haddii kale dee wuxuu qofkii noqonaya dee qof aan qadiyad lahayn marka cali khaliif aniga waa adeerkay ama dad isagaan isugu dhowle anigu markaa dee horta nin weyn dee sharaf dhac bay ii tahay inaan intaan saxaafad soo fadhiisto kritis gareeyo laakiin cali khaliif waxaan anigu oranaya ama baaqaan meeshan uga diraya waxa weeye war caliyo xamar waxaa joogay laba professor adna ka saddexaad baad ahayd mid waa buubaa oo waa saaxiibka buubaa Dubai buu intii ugu dambeysay joogay halkan uu ku soo socdaa ninna waa ninkii hore saaxiibka muxuu ahaa Samatar professorka afraad ina Samatar isaga khadkeena ugu ma jiro caliyow labada professor haddii xamar intay arkeen madaxdoodii ay intaasoo sannadood la soo dhiiltameen oo ay caliyow iyaguba arkeen in meeshan waxba aan looga ogolayn dee haddii markaa caliyow adiga wax lagaaga ogol yahay dee waxaan ku oran lahaa dee bal aanu aragne bal dee iminka adiga naftaadu in dooraad koonfur joogtay ama prime minister ka noqotay wax weyn oo dee meeshii ay ku siiyeen anagu maanu arag sidaa labada professor loo galay ayuunbaa dee adigana ama ay kuu geli doonaan ama kuu galeen anigu markaa
Professor Cali Khaliif dadka Soomaaliland waxaan leeyahay professorku waa professorkiini waligiin critic iyo tan qadiyada ah waranagu Soomaali weyn baan rabaa taas wax weey rag badan oo beesha dhexe kartisan baxamar waa joogaan qisada way sheegaan Soomaalidan isaguna fikirkiisa xaq buu leeyahay waxaan doonayaa garaadeen si aqliyad aqoon ku jirta ka muuqata hadalkaaga dad fara badan ma doonayo oo ku daawanayo ka daawanaya buuhoodlay meel walba waxaad ka dhawaaseen khaatimo aabo aasaasay marka maadaama Cali Khaliif oo adeeraanaad la talisay aabo kala fikir baatiyada Soomaaliland baa tahay dhaba aabuna wadagii khaatimo gacanta ku haya marka Soomaaliland aabo sawir ma ka siin kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliland raggan waa rag aad u waaweyn oo mas'uula rag dhalinyaro maaha waa waaye arag ruug cadaaya Soomaaliland bay u taalaa sidii ragga ay wala garanayaan oo de raggii Allahumma salli ala Muhammad ruug cadaaga halkan la oran jiray sidii ay u kasban lahaayeen annaga haddii farsamo naloo ka baahdo iyo u kala dabqaad garaadka u tag professorka u tag de annagu taa oo waddankayagiiyo de wax dhibaataa annaga taasi naguma hayso laakiin dawladda waa inay ka soo go'daa gogol ayaa maalin dhawta leeyahay Cali Khaliif baa dhigay gogol ma aha beesha dhexe uu dhigay gogosha wuxuu u dhigay qadiyad dadka halka dega magaca dhulbahanta huwan sidii iyaga naftooda oo tafaraaruq iyo arrimo iska jiraan uu isku keeni lahaa taa nafteedu meel kasta waxa uu wanaagsan dad mida hadduu markaa taa heli karo anigu oran maayo dadkoo dhani waa wala khaatimaysan laakiin haddii uu cayaarayo war dadka sidee aan hal meel iskugu keena Soomaaliland ba horta taa nafteedu waqti hore inay sameeyay laga garaad waa si wanaagsan sidaad ka warqabto Soomaaliland imika way dhowri 20 jirsatay hadan 26 sano ba ahayn Soomaaliland sidaad ka warqabto ila dawladda cigaal xeer jajabaa lagu soo noolaa oo nidaamkii hab beeleedka imka nidaamkii habka dimuqraadiga oo qof iyo codkii xisbiyada badan baa la maraya waxaan doonayaa dib ugu noqono sidaad ka warqabto bari dawladda cigaal inta badan naas nuujin baa lagu hayay siyaasiyiinta gobolka Sool oo hadii ay cigaalna u dhaqaale fara badan huray waxa la soo gaaray waqtigii Soomaaliland lagu yeeray isku taagtay marka imika waxaan doonayaa walaalo in dad fara badan oo siyaasiyiin oo mabaadi kala aaminsan ama buuhoodla ha ka soo jeedaan ama boorama ha ka soo jeedaan inaad sawir dhab ka siiso Soomaaliland meesha maanta ay marayso waa hadal wanaagsan Soomaaliland xisbiye u gudubtaa tiri xisbiyada annagu markaanu saa u eegno saddexda xisbiba saddex nin oo ilmaadeera hor kacaya waa run in dadka kale hadii ay abaabul waqti hore gali lahaayeen in iyaguba xisbi nin madaxa uu soo bixi lahaa ilaahay u naxariistay qaybe ayaa arrimaha wadwaday bariga laakiin waxaan u maleynayaa inaynan meel weyn u gaadhin arrimaha waxaan ka hadlayaa xisbiga la furayo waxaan ka dambeeyay nin kale oo dhalinyaro kaysan la yiraahdo oo isaguna tareegareeyay de markaa horta wax way saddex nin oo ilmaadeera ayaa saddexduba haday doonaan noqon kara xisbiyada u talin kara laakiin waxay ku fiican tahay dadka daafaha ama degan la degan beesha dhexe iyaga naftoodu inay xisbi iska dhex arkaan ama xisbi qura aad arkaysid in ay jacayl badan u qabaan iminka xisbiga u cud maalin dhawaato oo aan dhinacyo badan ka eegay hal qof oo bari kuma jiraba totally haddana Faysal Cali Waraabe markuu saxaafadda iyo media soo hor istaago markuu hadlayo wuxuu iska dhigayaa nin afkii bari ama doonayo inuu bari wax u qabto haddana dadkii uu isagu ururkii ama xisbigii uu haystay hal qof one person kuma jiro marka labadan xisbiye kale wallaahi
dee iminka waxaad ogeyd in muddo xisbiyadu inay isjiijiidanayeen waxaad halkan horta uga mahadnaqayaa maxkamadda sare muxuu ahaa ninka madaxda u ah oo si aad iyo aad u qiimo badan u soo afjaray isaga dastuurku ha dhigo laakiin dee waxa weeye decisionkuna waa decision makerkuna dee waa arrin meesha ku jirta oo waxa weeye iyadoo dastuurku dhigayo decision maker ahayn ama nin go'aan qaadasho leh wuxuu waqti dheer bay ku qaadan kartaa laakiin nin go'aan qaadasho leh ayuu ahaa waxaan doonayaa garaad iminka adigu Soomaaliland baad joogtaa bal waxaad ummadda uga warantaa ujeedada safarkaagan walow maalin dhaweydna iga dhawaajin dawladdu gacanta kugu hayso marka maxaalad isu soo dabaalida arinta Buuhoodle ayaad halkan u timid bal ummadda u sheeg niyahow anigu dadkan gobolada bari ka yimid laba ay u kala qaybsamaan nini waa nin telefoonno badan oo loo diray iyo dhibaatooyin badan dawladdu kala kulantay oo marka dambe sida dee idinku ama halhaysidee waa la soo xirageliyey anigu kaameey anigu iskay baan diyaarad u soo raacay adeer oo waxaan ku jiraa gruubka dee iyagu intay diyaarada soo qaateen qadiyadanna aaminsan oo aanan dee qof la soo bariyey oo hebelow kaalay hebelow meeshana waa meeshaadii dee waa meeshii aan ku dhasho cid ii sheegi kartaa ma jirto anugu markaa waxaan u imid markaa hadalka u soo noqdo in arrimahan bari nagu soo noqnoqda dadka qurbaha jooga horta waxay aad u eedeynayaan ma aha dawladda ma aha cid kale waa dadka halkan beesha dhexe madaxda uga dadkii 4 bilood dee indhahayga ii macallina waa dhex galay waa madaxda naftoodii waa la sheekaystay ma tilmaami kartaa kuwa ragga London markaa aanu joogno fikrad kale aanu ka haysanay maantana dee aanu aragnay indhahayaga raggaasi hawsha iyo baaxadda hawshu intay la eg tahay horta ninka baasha la yidhaah mahadnaq baan u soo jeedinaya waa baasha baarlamaanka ahaa cabdirasaaq mahadnaq baan u soo jeedinayaa cabdirasaaq khaliif wasiirada kale ku degdegi maayo waan sugayaa waqtigeeda wasiirada kale ku degdegi maayo waayo Soomaalidu waxay yiraahdaan haddaad qof aanan ammaan lahayn ammaan dusha kaga tuurtid waxa laga yaabaa inuu isfasaqayso xagla toosiye caafimaadka laakiin arintu caafimaadka adeer way dhaafaysaa arintu waxay noqonaysaa war dadkan ma kasban kartaa xagla toosiyow magaaladan Buuhoodle aad u dhalatay 4 koonaba ma kaga soo wareegi kartaa mise daaf baad ka degan tahay su'aaluhu way badanayaan baashe maxamed faarax baashe waxa weeye waana reer laascaanood soo maadan garan oo laascaanood any minute waa tagaa mashruuciyuu geeyaa waana reer saaxdheer waxaan ognahay in ay tahay meesha ugu weyn ee Khaatuma degan tahay iyadoo Khaatuma joogto ayuu intuu tago baashi wuxuu doono ka soo fulin waa sax garaad gabagabadii baynu marnay hadalkaagan ma muuqdaa mid xil doona anigu London wax kasta waa ku haystay in aan dadka 23 sano ayaan anigoo qurbaha jooga Soomaaliland ahayo dee adeer meesha ma soconayso soo adag waxa weeye kuwii shalay aanu ku soo dunay ama keenay oo aanu anagu Soomaaliland ka dhignay oo waxba magacyadooda aan sheegayn dee ayaan xitaa iyaga naftoodii ay nagu leeyihiin war hebelow dee halkaana hawl fiican baad ka wadaa maxaad noogu iman weyday dee markaa arrimaha horta i keenay waxa iga badatay warniyo maxaad noogu iman weyday anigu Allahumma salli ala Muhammad multicultural baan ahay oo boorame waxa weeye waa qaraabaday magaalada waa ku dhashay nin garaadaan ahay reer Burcaan haddaan doono sii noqon karaa reer Laascaanood baan dadka rag badan oo aanu kaftano oo madaxa ama halkaan noogu yimaado madaxda badankeeduna halkaana waa degayn halkaana waa degayn kelmaddaas waxa iga badatay maxaad noogu iman weyday anigu markaa imid hadeertana waxaan ku jiraa
uun in dee dowladda wixii anigu aan la qaban karo hadday xag nabadgelyo tahay iyo haddii xag kale ay tahay inaan la qabto. midna waan idiin sheegayaa dowladaha mid kastaba ha ahaatee cabdiwaraabe ayaa waxa la sheekh cabdiwaraabe wuxuu yiri xaaji cabdiwaraabe wuxuu yiri war anigu dowladdii timaadaba niman yahow waan la shaqeeyaa. marka horta waxan mucaaradka de anigu horta u dhalashaba malihi oo wax weeye dadka qaar baa iska jira intay nool yihiin weligood mucaarada. marka anigu dowladda waa run xiriir fiican baa naga dhaxeeya, saaxiibo badan baan ku leeyahay. madaxweynuhu waxa weeye madaxweyne 5 sano uu joogay wax weyn oo la taaban karo qabtay. 2 sano hadeerta loogu darayna anigu waxaan ku talinaya eergaabo weyn oo aragnay iyo wadadeedii oo in yar u dhiman tahay. waxaan dowladda kula talinayaa 2 sanadood waa waqti aad u badan, 2 sanadood waqti aad u badan in ay hadeerto oo ready way bilaabeen. 3 bilood ee tagay dawaad ogeyd xirsi iyo baashe iyo wasiir muxuu ahaa khaliif inay lascaanood tageen mashaariic badanna inay ka fuliyeen oo airportkii lascaanood la hagaajiyey, wadooyin badan in la hagaajiyey. anigu waxaan uu leeyahay dowladday 2 sano doorasha idinku soo socotee ka faa'iideysto oo arrintiina bari geeya. su-aasha ugu dambeysay garadan ku weydiinayaa kolley madax dhaqameed baa tahay, madax dhaqameedkuna garaad iyo caaqil iyo minaaq iyo boqor iyo ayaa dadka Soomaalida tahay talama darajooyin bay magacyada ula kala baxeen. dadka qaar bay isweydiinayaan aabbahoodii ka dhawaajiyay inuu nool yahay oo halka khaatum hawlu ka wado. marka garaadnimadii ma aabbahaya runtii waa la iska dhaxlaa malaha sidaan filayo, mise waa tahay laga sameeyay hadduu aabba garaad yaadna waa tahay hadduu aad garaad tahay inankaagu yahay bal noo sharax. waxa weeye horta dadku waxyaabo badan baa iskaga qaldan. waxaan horta madaxtinimada ilaah baa bixiya. madaxtinimadu de wax iska soo booda ma aha, waxan ilaah baa keenay. garaadku waa runtaa waa garaad qiimo iyo sharaf badan leh. sidaan dhowr jeer dee saxaabada ka sheegayna isagoo halkaa jooga dadka halkan jooga ay cisiyo sharaf u hayaan, isagoo oo ka maqan cisiyo sharaf u hayaan because wanaagii uu falay ee hore ayaa aad u badnaa. anigu haddaan u soo noqdo anigu qaybta siyaasadda ayaan aniga wax arrimahan iminka aynu ka hadalnay kolley siyaasadda way ku jirtaa oo markan aad leedahay nabadgelyo iyo khaatumo iyo dowladda inaan isku soo dhaweeyo oo la isfaamo waa siyaasadda. marka anigu garaadnimadan ku soo noqon garaadnimada dadka u qeex walaal adeer dee anigu waxa weeye idinka naftiinu saxaafad ahaan dee in la saxaweey oo saxaafadda waa in la saxaa. waxa weeye qofka hadduu aabihii nool yahay ama suldaan ha noqdo ama garaad ha noqdo marka hore magaciisa la sheegaa, markaasaa waxa lagu xigsiyaa title-ka aabihii iyo family. marka markii dee aan arkay beesha dhexena waxaad yara moodaa in iyo groupkan barigu waxaad moodaa inay weli isku yara cusub yihiin. dhowr ninoo suxufiyana waxaan ku yiri war waxaad tiraahdaa injineer cabdinaasir garaad abshir ha oranina garaad cabdinaasir. taasuun baan adeer idiin saxayaa. anigu markaa dee aabbahay baa taliya oo garaada, anigu nin aqoon-yahana oo uun raba inta dadka ka dhiman xitaa ha igu noqoto inaan isaga iyo cali khaliif u tago oo aan nabadgelyo kala hadlo. anigu arrimahaygu u nabadgelyo ayay u badan yihiin, waana arrin aan soo dhaweynayo. laakiin anigu tanaad weydiisay ma isagaa xukunkii haya may adeer isagaa haya. aad iyo aad mahadsan tahay fariinta caafimaadka qabe ee injineer cabdinaasir garaad uu diray ummadiisa haddii ay yihiin reer Soomaaliland iyo kuwa daafaha dunida ku nool. waxaan ugu mahadnaqaynaa qadarka waqtigiisa qaaliga uu noo horay. aad baad mahadsan tahay.